mahadsan yihiin it makes me very happy aniga laba gabdhoodaan dhalay marka mar walba waxaan jeclahay hadda markaan boogga wareejinayna iyo ambaasadorka meel walba adduunkaan ka tagnay carabaha waxaan tagnay magaalada salaalax la yidhaahdo oo reerkana ay degan yihiin reer Puntland ay degan yihiin marka runtii aadan ugu farxaa gabdhahan inta badan gabdhahan dhex fadhiistaa oo waa iska liberal nahay marka su'aalaha tan labaad ambaasadorkan u deynaya oo runtii aad u qusayso tan kood gabadha waa runteed hadda bangiyada u fiirso waxaa hoos yaalla bahal yar oo cas oo haddii robbery uu dhaco ama tuugay soo galaan saan loo riixo arrimahan waa taabuuga waa waxaan laga hadlin ingiriisku wuxuu yidhaahdaa elephant in the room oo macnaheedu ay tahay literally haddii la fasiro maroodi qolkan ku jira caawa hadduu maroodi halkan joogi lahaa qof walba waa ka hadli lahaa laakiin anaga waxyaalaas kama hadalno ma rabo inaan diib u galo sababtoo ah research oo University of London la sameeyey iskuulka la yidhaahdo Oriental African Studies shabakadan aan ku soo bandhigay wayna ku jirtaa website-kooda haddaad aragtaan oo intensive ah oo xataa Puntland Somaliland gobolladan ay ku jiraan marka arrimaha waa pandemic waxaana pandemic markay noqdaan waa covid-kii oo kale wayna jiraan laakiin waa taboo cultural thing diin ma dhihi kara is absolutely nothing to do with diin marka diib uma sii galaya teknolojiyada waa very straightforward aniga waxaan sameeyey muddo iminka 9 sano laga joogo master degree oo electric and electronic engineering waxyaalaha ugu badan waxay ahaayeen chip inaan u samayno digital piano inaan u samayno traffic light-ka inaan u samayno maxaa la yidhaahdaa meeshan lacagta lagala soo baxo intaas samaynta gabadhan waxay sheegtay waa very straightforward kan ugu horeeyo effectiga wuxuu noqonayaa bahal waxaa jira booliiska ay wataan oo basbaas ah jeebka gabdhaha hadday gashtaan ninka soo approach gareeyay inuu dhibaato uu doonayo wuxuu ka dhigayaa almost 1 hour blind uu ka dhigaa indhoolaynaya wixii ka dambeeyay yeelkadiis kaas waa jira waa very effective laakiin normal time qofka markuu panic ku dhaco ilaa qofka panic ku dhacayo qof normal waa samayn karaa kan kale ku xigto waxay tahay panic button hadda gabar xaragoonaysa qoorta wax ma gashan karto oo ma oranayso button riixaya laakiin mar walba ingiriisku wuxuu yidhaha prevention is better than the cure waxa mar walba ka muhiimsan in la daaweeyo issue kaasoo ah qofka inuu ogaado tallaabadiis meeshuu dhigayo aniga waxaan aaminsanahay 100% under any circumstances situation kasta uu dhaco in gabdhaha aan la blame garaynin nothing to do with it waana meel walba waa arrin dhowr jir aan ka hadlayo xataa dhibaato iga soo gaartay meel walbaan ka hadlaa we blame society waxaan nahay based as sexist misogynist ah oo la leeyahay iyada meeshaas maxaa geeyey and this is very important sababtu waxay tahay gabar reerkeedii wax u soo baratay oo wiil ay shukaansan ilaa waa la shukaansadaa is normal things marnaba oran mayso wiil baan isbaranay meel baan u tegayaa by the way waxa ka dhacaya meesha qof ku fikiraya ma jirto ama dil baa ka dhacaya waana gabar yaroo dabaqay ka soo tuureen wiilal la sheekaysanaysay marka waxa la eegaa saansaanta la eegaa gabdhaha mar walba social media digitalkan uga sheekay waxaan idhaahdaa waa halis weyn baa ku jirta especially raggeeni Soomaaliyeed I'm sorry waa inaan sheegaa halistaasoo ka imaanaysa gabadhan waxay sheegtay waa runteed waxay ka imaanaysaa saansaanta la eegaa I think probably ilaa iyo 6 program aan ka sameeyay saantaasoo ah aniga gabar waan baran karaa caawa Facebook waan isku darsan karnaa laakiin gabadhii caawa aan bartay Facebook haddaan uga bilaabo quruxay sawir ii qaasa ii soo dir problem baa jira big problem baa jira nin adiga ku doonaya inuu markaa ku guursado marnaba lagama yaabo inuu saas ku yiraahdo tan kale ugu dambaysa sheegayna waxay tahay oo muhiimka ah gabdhaha TikTok ku jira oo liiri waa caan 1 milyan bay gaareen xaflada loo sameynaya nin Soomaali ah oo guursanaya haba yaraatee ma jirto nin walba wuxuu doonayaa gabar reer wanaagsan ka soo baxday adeen laakiin tan uu daawanaya waan daawanaynaa waan isu gudbinaynaa in reality laakiin adeen ani waxaan doonayaa gabar reer wanaagsan ka timaaday oo akhlaaq leh oo diin leh oo reerkeeda laakiin waxyaalaha hadda aan aragnay anigu waxaan isleeyahay Cabdinaasir you getting too old inaan social media iska xiro oo tabliiqan kale ay u soo dhow in reality marka gabadhan 100% waxay sheegtay waa run bahal waxa jira aan sameynay oo ah saan wuxuu sameynayaa qofka maskaxda ka soo ridaya dhawaaq ninkan waa kaafiga iyo kan effectiga wuxuu yahay ma qaana inuu wadankan illegal ka yahay bahalkan basbaaska ah basbaaskan waxaan dhihi lahaa meelaha qaarkood gabdhaha jeebka ka gashtaan ninkii kugu soo orda nafta ka saaro indhaha kaga qabta hal saac indhool noqonaya mar dambe waxaad qalbigiisa ma soo gelayaan tan ku xigta ambaasadorkan u diibaya sababtoo arrintan waana qosaysaa
waxaanu samaynay Yasmin Foundation la yiraahdo ambassadorku sameeyay anaan kala shaqeeyo oo maaragtay iskuulaan ku samaynay oo lagu baro caruurta Soomaaliyeed ee indhaha aan lahayn dhigahan wax ka maqlin iyo autism oo wadankan runtii aad ugu badan marka taas ambassadorkan ku deynay ambassador soo dhow Aisha iyo Maryam way maasan yihiin arintan oo ardayda qaba baahida gaarka soo sheegay Cabdinaasir hay'ad waxaan sameynay ilaa Yasmin Foundation hay'adda gargaarka ee Yasmin waa gabar dhalay oo ugu dilay Muqdisho adoo yar waxaan hadda taan Soomaaliya aan ka dhisnay iskuulaad marka waxaan dhisnay iskuulaad caadi ah oo dadka ardayda mataqaana qaba lixad wax ka bartaan kadib waxaan ogaanay inay jirto baahi badan oo loo qabo ardayda qaba baahida gaarka kuwaan wax arki karin kuwa wax maqli karin waxaan ka furnay laba iskuul oo ardayda wax maqli karin iyo kuwa mid aan wax arki karin arday wax arki karin dhibaatada loo qabo iskuulaadkaas way badan yihiin Soomaaliya guud ahaan waa ogtihiin reerkii dhalay caruur qaba lixad iyo kuwa mataqaana wax maqli karin wax arki karin marka hore waxaa la geeyay iskuulaadka kuwa qaba lixad kuwa kale waxa leeyahay waa indhoole waa dhigoole waa jiis guriga joogaan aniga marka hore waxaan ugu dhalatay inaan iskuulkaas furo waxay ahayd wiil yar ayaa iga codsaday inaan iskuulkaas gacan ka siiyo iskuul furay kadibna waxaan furay laba iskuul kale oo hadda taan wax ku bartaan arday ilaa ay gaarayaan 200 arday ka badan iyadoo waliba ay ku taal lacag hadda xamar waxaa laga furay iskuulka ugu horeeyay oo ardayda qaba autismka ADT-ga Down syndrome-ka oo Soomaaliya ku soo batay Soomaaliya ogtiin ilmahaas kale waxa la leeyahay cunugaas uu jiran yahay uu xanuunsan yahay waxa la geenayaa meelaha dadka waalan waa laga xirayaa cunuga uu si waalanaya uu si dhawaato dhacaysa marka dadka waxaan kula talin lahaa ganacsada waliba waa sheega markasto cidii awooda in la taageero la xoojiyo la furo iskuulaad ardaydaas wax ku bartaan marka waa soo dhaweynaya wax fiican waaye anaga qaybteena waa qaadan doonaa insha Allah taala waa qaadanay waana sii wada doonaa inaan iskuulaadkaas sii badino hadleeyahay bismillah Maryam iyo Aisha runtii way farxad galiyeen qoys fiican iyo hooyo fiican baa soo barbaarisay waxaan rajeynayaa in Ilaahay aqliga iyo cimriga iyo caafimaadkeeda hagaajiyo aad buu mahadsanyahay laba su'aalood oo yacni macno weyn sameynaya bay meesha keeneen su'aal Cabdinaasir baa si fiican u sharaxay su'aashii labaad laftirkeeda ambassadorka sharaxay waxaan rabaa inaan wax yar ka taataabto ku daro su'aashii Aisha oo oranaysay dadka dhalinyarada ciyaalka baahiyaha gaarka qaba sida waxbarashada tiknoolajiyada loogu gaarsiin lahaa runtii waa ognahay wadankeena tiknoolajiyadiisu aad bay u hooseysaa ma aynaan gaarin waqti waxbarashada si fiican jaamacadaha iyo iskoolada jaamacadaha waxa laga yaabaa in xiisadaha qaar lagu qaato laakiin iskoolada saas ugu badna ambassadorku wuxuu sheegay in iskool Yasmin la dhaho oo dadka baahiyaha gaarka u adeega laga furay Muqdisho ka furay halka waxaa jira urur ay dhagolayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba leeyihiin oo iyo iskoolo wax lagu baro oo loo dhiso haddana waxaan sample in oo ku filan hadda sanadkii markii koroonuhu uu dhacay waxbarashada waxa laga dhigay e-learning ardayda dhan iyagoo guryahooda jooga wax baran jireen macallimiin baa u soo geli jiray marka waxaan u arkaa haddii aynu dhiirigelino oo ka shaqeyno wax aad u fudud oo aan cuslayn in laga shaqeeyo maalintii markii koroonuhu uu dhacay oo wadanka dhan uu jaam galay oo waxbarashadii dhan ay kala istaagtay oo sanad dugsiyadii ay istaageen yacni waxay ahayd wax aad u weyn oo qof walba uu la yaabnaa especially waalidiinta waxay ku leeyihiin war ciyaalkan saan wax ku baramayaan lacag bay iskooladan rabaan waxaan rabnaa in sanad dugsiyeedka markii waxa kan Ilaahay naga qaado dib ha loogu furo haddana waxa imtixaankii iyo ardaydii sida casharada galaaska uga qaadan jireen si lamid ah bay e-learning-ka uga qaadan jireen Puntland wasaaradda waxbarashada iyo iskoolada iyo jaamacadaha intooda badan way sameyn jireen marka waa wax aad u kooban Aisha inay fikradaas ay maanta beesha soo bandhigtay maadaama digital laga wada hadlaayo iyo tiknoolajiyada sidii looga faa'iideysan lahaa walwalka ugu badan oo waalidiinta haysta waxa weeye marka ilmo disable haystaan
haddii waxbarashada ay e-learning ku helayaan oo iskooladaas aynu xoojinno ay ku helayaan yacni wuxuu ka walwalayaa ilmihiisu markuu ama curyaan yahay ama dhagool yahay ama indhala yahay inuu iskoolka geeyo waxay ku tahay walwal ama wax ku dhacaan ama lumaa ama waa qof maxaan ku dhahaye aan lixdiisii lixaad qabin wax kala gaaraan laakiin markuu gurigiisa uu ku helayo borogaramadii loo diyaarinayo waxaan u malayn lahaa in waalidiin badan ay ku dhiiranaan lahayn in ilmahooda la geeyo anigu waxaan rajaynayaa insha allah in barnaamijkaas caawa fikrad fiican bay caaisha soo kordhisay ururka iyo macadada iyo barnaamijyada iyo iskoolada ka shaqeeya ardayda is-aybalka waxbara haddii ilaahay nafta ii daayo waa la fadhiisan doonaa fikraddaasna iyo wasaaradda waxbarashadaba caaisha waxaan rajaynaynaa aidiyada aad maanta keentay waxaan kaa ballan qaadayaa inaan wasaaradda waxbarashadana kala hadlo aan kala hadlo marka iigu horeysa iskoolkaasna aan booqdo adigana haddii ilaahay maan ku geyn doona insha allah aad baa mahadsanta wax badan ku dari mayo midda koowaad barnaamijkan ku saabsan maxay ahayd iskuulka Yasmin Foundation runtii kudayshu mudan yahay waxaana rajaynaynaa in si un loola shaqeeyo hadda anagu hay-addan joogno Ellen baa la yiraahdaa waa international asal ahaan waa Swedish bay ka soo jeedaa barnaamij baa jira la yiraahdo Digital Innovation Unit qaabilsan barnaamijka waxaan ugu talagalnay dadyo badan baa jiraan awoodi karin in macallin iskuulada ay yimaadaan marka waxa la yiraahdaa ma loo tagi karaa yani qasamayna ma loo tagi karaa tijaabeenu qaadnay waxa la sameeyay for example container cad oo arka wax lagu qaado baa waxa loo bedelayaa mobile school waxa lagu xirayaa solarkii 24 hour waxa lagu xirayaa kombiyuutaradii wuxuu ku xirayaa internetkii waxa ku jira manhajka waxbarashada hamicneedu waa maxay gaari baa la saaraya waxa la geynayaa tuuleys waxba oolin waa la geynayaa dadka halkaas ay ku qaadayaan koorsada haddii rabaan for example oo kale wax alla haddii tahay waxbarashada dadka waaweyn haddii tahay dhalinyarada dadka reemiga in macna la samayn karo prototype-kiisa dual yaraado within 2 weeks baa kusoo bandhigi doona halkan isla sonojiif bandhiga iskuulka kadibna soo tijaaba macnaheedu waa maxay inaan la sugin dadku inay yimaadaan halkan iskuulada ka soo qayb galaan ee kaliya laakiin loo tagi karo tan kale gabdhaha yaryarka waxaa muhiim ah in la dhiirigeliyo hadda ka horba waxaa dhacday adigu gabar yar baa jirtay bay yiraahdeen marka gabadhu gurigeedii joogtay waxa uu imaan jiray adeeradeed baa u imaan jiray gabadha aad u yarayd marka adeeradu waxay oran jireen inta uu yaraan bay oran jireen adeer $1 iyo $5 bay aqdhiga bay adeer mid qaado $1 bay qaadataa adigu dhowr jeer marka waxay ka dhigteen fon bay ka dhigteen oday gabadha dhalay marka xoogaa uu yara dhigsaday wuxuu isir waana gabadha bal gooni ula baxay aabba haddii shanta lagu keenay halka door marka shanta qaado haye bay tir maadu odayaashii baa yimid oo gabadhii meeday baa la yiri shantii halkii door bay qaad odaygu waxana aabbu aan qaanaa bay tir waxa sheegayso waa garanaya laakiin qiyaas bay tir hadda hal mar shanta aan qaato maxay ii malaynayaan inaa wixii aan aqaan waxa iga istaagay marka dakhligiisa cun jiray halkaas iga istaagaya miraad waa gabar 8 jira waxay macnaha hadda programsatay oo dakhli joogta ay qaadanayso marka waxaan ilaahay taano ugu maasado bas alxamdulillaah rabbil caalamiin mudanayaal iyo marweyne aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha bahda saxaafadda marti sharafta wasiirka aad iyo aad baan idin salaamaya salaanka bacdi arrimaha tiknoolajiyadda baan rabaa inaan bointigaas wax ku darsado dhalinyarada Soomaaliyeed horta si fiican bay uga faa'iideysteen khayr Allah siiyo dhalinyaro badan baa ka faa'iideystay meelaha looga faa'iideystana waxaa ka mid ah dhanka ganacsiga waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo waxbarasho ka dhex furatay oo halkaa ka shaqaysta kuwa wax ka barta oo markay wax ka barteen waxbarashada shaqo u sii raadsaday waa indirect meelaha kale oo ay dadku uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah online education iyadoo meesha ku jirta oo dadku inay waxbarasho ku raad dibadda wax kaga bartaan waa qaab looga faa'iideysan haddana caawinaysa shaqo abuurka meesha ku qoran barnaamij shaqo abuur ku salaysnaa intaas waa uga mahad celinaya waa intii aan ka fahanay anagu haddana dhalinyarada Soomaaliyeed nahay hal qodob oo tiknoolajiyadda naga haysta baa jira laba qodob qodobka koowaad waxa weeye kalsooniba kuma qabnaba wax kalsooni la yiraahdo aan tiknoolajiyadda ku qabnaa ma jirto dadku waxay aaminsan yihiin inta xumeed baa naga soo gaadhay
tusaale 2016 anoo kambaalo jooga baa aniga iyo gruub kale waxaana la ku xareeyay meel hotel afrikaanal dhaho waxaa la yidhi barnaamij online ah baa jira lacagaa lagu darsanayaa faa'iidaa la helayaa waxbaana lagu akhri aniga $800 baa laga qaaday meeshii lacag baa ku tirsan iyaamaa wax la celceliyey ugu dambayna dadkii dhan waa la dhacay waa soo noqotay Soomaaliya halkana ay anoo boosaaso jooga baa waxa dhacday waxaan ku biiray barnaamijka forex trading markii aan ku biiray ilaahay amarkiis anigu ma aan noqon dadkii iyagu dadka maalgashiga u dhiibtay ee waxaan dadka iyagu shaqaysanayay waxa dhacay dad badan baa lacag u dardaray dhalinyaro xamar joogtaa loo geeyay loo sii dhiibay kuwa halkan ugu sii dhiibeen lacagihii bay la goosteen dhalinyaradaasi dabeetana waxa la aaminay wixii online la dhahaba ka hadlaba ama waa tuug ama tuuga u shaqeeya horta saskaas dadka laga sidii looga saari lahaa dawladda laga rabaa arinta oo ay dawladdu diyaariso meelaha online-ka oo sukuurka ah oo dadku ay ka shaqeysan karaan oo damaanad leh si dadku kalsooni u helaan wasiirka shaqada shaqaale waa jooga mudane wasiir ABCD dadka Soomaaliyeed arrimaha tiknoolajiyada waa ka shaqeysan karaan waa sukuur anaga hubna dadku sa loo sameeyo horta aad muhiim u tahay qodobka kale oo aan ka hadli rabaa wuxuu yahay cryptocurrency arinta la xiriirta mudane inkastoo magacaaga uu dhaafay iga raali lahaw cryptocurrency-ga markii hore si baan u fahansaneen haddana si kale u sharax waxaan u fahansaneen tusaale ahaan anigu waxaan akoon ku leeyahay shirkad la yiraahdo FX Primus Trading Bank waxaan ku leeyahay akoon ilaa 2000 ku lahaa ciladaha dhalinyarada Soomaaliya haysta baan rabaa inaan wax yar ka taabto waxa weeye markii aad rabtid inaad adduunka la xiriidid sharci baa lagu weydiinayaa sharci ma haysano baasaboor la aqoonsan yahay ma haysano waxa la yiraahdo resident letters baa la iska rabaa ma haysano waxa la iska rabaa addresses street address baa la iska rabaa ma haysano post code baa la iska rabaa ma haysano arinta dhaliisha waxa marka dawlad la'aan baa dalka ka jirta marka in laga hadlo tiknoolajiyada laga faa'iideysto waxa aniga ka hormarin lahaa what challenges baan haysta caqabadaha ismaayihiin haddii aanan ka gudbi karin arrimihii sharciyadii aniga aan adduunka kula macaamili lahaa maxaa tiknoolajiyada saamida kale anoo waliba challenge ku jira arrimaha la xiriira arrimaha la xiriira in la tiknoolajiyada laga faa'iideysto waxay u baahan tahay fan tusaale ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed lacag ma haystaan lacag la'aantana meel ay loan ka qaata adiga hadda ka shaqeysid wax laga yaabaa inaad wadan fiican ka timi hadda lacag weydid aad loan dalban kartid laakiin annaga tusaale ku siinaya jaamacad baa qof ka soo baxay hebel mugtacad soo guriga yimaado lacag baa laga rabaa adeer contribution baa ku dir haye gudoomiye wax yar waa ku dhameynaya haye jaan oo dhameynaya haye oo dhameynaya sharaxaad waa muhiim waayo tiknoolajiyadu waxaan haystay wallahi waa muhiim wixii inaan mataqaanaa su'aal iyo jawaab ku koobno waxaan ka jeclaan lahaa hadda pressure baa istardigada pressure سؤال يجواب معنا ما كيلو شركة هذا قالي وما سيدا قدامي dhalinyarada Soomaaliyeed arintaasna ma haysato tusaale kale soo qaadanaya caqabad iyaduna hadda ka hor waa shaqeystaa anigu lacag baa shaqeystay $15,000 $15,000 waxaan ku shaqeystay kaar aan ka qaatay Salaam Bank oo ahaa Visa card oo Djibouti laga keenay kaarkii waxa lagu yiri lacagtii markaan withdraw damcay inaan sameeyo waxa lagu dhahay kaarkaagu ma qaado $10,000 ka badan waxaan damcay inaan wax sii yeelaaba iri waxay igu dhaheen waxa soo disataa bangi account soo dir Swift code leh Swift code bangi ma yal dalka mana ka shaqeeyo how can we marka sidee baa uga shaqeysan karnaa caalamka uga qayb gali karnaa markii aysan jirin wax aan adduunka kula macaamilno sidii lacagtii waxay noqotay 10,000 aan la baxo 5,000 dib aan ugu shaqeysto dabeetana awrtaasno waa caqabadaha
kiribtada arrinteeda anaa kusoo laabtay mudane hadda ka hor 2020kii waxay maraysay $70,000 bay gaartay maantana waa 19 caawa anaa fiiriyay 19.8 maraysaa dadkii waagaa maal gashtay diversification aniga igu jirta weeytaa inay saxid baa rabaa dadka waagaa maal gashtay ay 70 maraysay tusaale ahaan hal bitcoin gatay maantana ay $19,000 ku marayso ma khasaareen mise waa faa'iideen su'aal muhiim ah weeye aad iyo aad u mahadsantahay inta ku soo koobay waxaan markii hore u mahadcelinayaa panelka Cabdinaasir iyo Gosol iyo ambassadorka wasiirka iyo injineerka maadaama la yiraahdo soo koobo halkan waxaa jooga dad badan experience ah oo arrimaha teknolojiyadda waxna ka sameeyay waxna ku qasaaray marka mar raba inaan ku dheeraado aan wax ka mid ah dadka forex ku qasaaray mar dambana wax ka sameeyay aad ugu lug leh mataqaana hadda wax la yiraahdo market affiliatorka marka laakiin laba su'aal baan qabaa oo muhiim ah أنا ما عبد الله الشيخ بالله بر ورينا هاي مرنا وحن كم إذا ضدك سوشيال ميديا يعني عاد أقول له لبس سؤال بنقبل لبس سؤال وحيت هاي وزيرك أيام سؤال ودينيا مركوات مرك الله بعد نحن روى عبد الناصر أو رنتي عن كده ينه رنتينا حق التكنولوجيا ده نوعه إنسبايا مرك سؤال شكوى وحيت هاي وزير ما دام كذا واجسي دولته إني دور مهم كقاعدة حق الشقة أبوركا إلا اللي حكون أوقف أو شقالها دولتنا أيهم حرمنا كويديو محوية هي دور كدولة بنتلان يكو أدن إن وحبر الشارع السراء لوجود بقى التكنولوجيا ده إحنا قلنا هاي وحي طول سنة كهر دتك اللي بريها يا جماعة الجبراء جارهن كمين ساينس كو والله يا إن حجاب عوانة اللي كلا بدله لكن أصلاً جاء أسوأ حل برتوا واحد طول سنة كهر برتوا قديمية waxbarashada waxay ku salaysan tahay traditional way marka si loo gudbo maxaa idan kaga qorsheysan in waxbarashada sare in lagu dabaqo teknolojiyada taas oo ka caawinaysa ardayga soo baxa inuu noqdo hal abuur shaqo halkii uu noqon lahaa jobless wax suga oo meheradaas ka fadhiistaan the second question waxay tahay waxaan weydiinay Cabdinaasir waxaan ognahay caqabado badan baa ka jira xagga teknolojiyada wadankeena ma laha system caalami ah marka qaarkood bangiyada iyo waxyaabaha kale caqabadaha ka jira qofka dhalinyarada markuu rabo Soomaaliya inuu ku sameeyo challenge kala kulmaysa lacagta hadduu ku sameeyo iyo dhaqaalaha hadduu ku sameeyaba si fudud kuma heli karo marka ma jira wax la yiraahdo xiriir sida loo dhisi karaa xiriir dhex mari kara kambaniyada waaweyn oo dhinaca software-ska iyo teknolojiyada yani looga dambeeyo iyo qofka dhalinyarada hadda xoogna jaamacadaha adduunka ardayga dhigta dadkan arday u badan yihiin inta badan ardayga dhigta wuxuu leeyahay email buu leeyahay international si fudud ay wax ugu iibsan karaa waliba ardayda waxa loo sameeyaa discount waa loo sameeyaa si ay kambaniyada software kaga iibsadaan inagu marka si taa loo gaaro sidee u dhisi karnaa xiriir dhex mari kara kambaniyada waaweyn iyo ardayga Soomaaliya jooga inuu rabo inuu horumar ka gaaro teknolojiyada waa maasantiin waxay ku wajahan tahay wasiirkeena qaaliga iyo qubajoogtaba waxaan leeyahay anigu waxaan qabaa inay dawladdu doorkii ugu weynaa ka gabtay dhanka shaqaalaha ma garanaysaa shaqaalaysiinta ama shaqo abuurka waxa ugu badan ee dawladdu gabtay waxaan dhihi karnaa hadda waxay qaban kartaa dawladdu inay shaqo abuur noo samayso dhankii fishinkii oo maxaa la dhahaa badii ama beerihii iyadoo ka maarmaysa oo na tusaysa inay ka maarmi karto dadkii ajaanibta ahaa ee waxyaalaha uga shaqeeya haddii wasiirku hadda wuxuu xustay inay leedahay shaqo la'aani ma jirto shaqo abuur dadka samaysan kara Soomaalideena sideen u badanahay way isku dayanaa mooyee wax ka cusub ma keensano marka haddii shaqo abuur noo sameeyaan oo ayagu ay sameeyaan inayna tusaaniin inaan beerihii falan karno inaan badii wax kala soo bixi karno inay farsamadiina tusaaniin waa ku dayan lahayn wax cusubna waa la soo bixi lahayn laakiin waxaanu aad uga xunnahay inay dawladdu dowrka gabtay wasiirkeena qaaliga waxaan weydiinayaa dawladdu shaqada iyo shaqaalaha wasaaraddaasi ma waxay qaabilsan tahay kaliya shaqaalaysiinta shaqaalaha dawladda mise shaqaalaysiintu waa baahsan tahay oo waxa ay ku saabsan tahay dhanka iyo shaqo abuurkii dadweynaha dhan haddaan u soo jeestan dhanka qurba joogta labada mudane waxaan weydiinayaa qurba joogtu waxa ugu badan aan ka faa'iidno ama ka helno waa inay intay wadankii noogu yimaadaan nagu dhibaateeyaan oo ay iyagu xilalkii ugu fiicnaa oo boosaska ugu wanaagsan qaataan ana wax faa'iido oo badan ka helin
marka ma dhihi karnaa doorka ugu badan ee shaqo abuurka waxaa gabay booskaas inay tahay qurbo joogta su-aashu waxay u wajahan tahay dhankiina idinka maadaama ka joogtaan booska qurbo joogta aniga qurbo joog may waxaan ku noolahay covidkii baa kaga soo cararay meeshaan ku noolaa waddankaan ku noolahay tan kale anigu waddanka igama xigti 1,000 sano oo Soomaali DNA 100% baa ahay adaa baxooga carabiyad aan kula kaftamo u yareego qurux badan ma sha Allah waa runta waxaad ka hadashay waa reality jirta laakiin qurbo joogta you have to ask yourself isweydiin why qof qurbo jooga shaqada u qaatay fursadu soo helay waxa uu soo bartay connection buu leeyahay marka sidaasay inta badan ay wax ku xoogaan si qurbo joogta laakiin aniga iyo ambassador qurbo joog ma nihin waddankan joognaa waan soo wareegnay waan soo ambassador waa soo daa laakiin wiil dhalinyaraahay waan joogaa gabadha dambe waa runteeda boqolaal program ka sameeyay laakiin dadka la dhageysto waa qoladan TikTok ee sidaan sameeyay la dhageysta ani lama dhageysto ani culimadii lama dhageysto maalin walba ka hadla maalin walba boqolaal bay la soo xiriirtay leeyahay Facebook baa laga jabsaday balaaya lagu sameeyay wax baa laga sameystay marka dadkii waxay xiiseeyaan TikTok bay xiiseeyaan TikTokna de meel baaday oo lagu dhintay weey marka taasan kaga baxaya brotherkan hadaladiisa runtii horta waa qof confident I don't know in reer midug tahay kale laakiin you are very confident and I like that confidence absolutely confident laakiin waxyaalo badan isbedelay inkastoo reer midug ay advance yihiin waxa isbedelay Swift waddanka jirta hadda tan kale waxa tiri 10 kun la diiday hadda marka ka soo baxaynay ambassadorka waxaan la weydiiyay lacag 10 kun oo dollar ka badan miyaa wada hadii lagu qabto Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Canada waa laga qaadayaa baxraad galaysa marka waa runta addresskan issue ayaa ka jira laakiin hadda bangiyadan IBS iyo qoladan Premier waxay keeneen inay fududeeyaan oo cryptocurrency laga iibsan karo waxyaalo aad u fara badan jawaabtaadii su'aashaadii weydiisay su'aalaha isku dhaxbateen xogaa maskaxdii way gabowday waxaan isku dayay inaan ka jawaabo oh very good question aan ku sheego 1750 ayaan waxaan ku iibsaday let's say 1 bitcoin BTC aan ku iibsaday 5 sano ka hor wuxuu gaaray 70 kun buu gaaray good wax baan ka soo saartay hadda wuxuu joogaa let's say 20 kun 19 kun aan weli ma qasaaray weli ma arkin taariikhda qof leh BTC Allah saxi doona cryptocurrency ku qasaaray goormaan qasaaray aniga 1700 markuu gaar waan qasaaraya $1,000 qasaaraya laakiin adiga black economy wax la yiraahdo jira waad fikraysaa waxaad leedahay 70 kun ma mar haystay aan mar baan haystay 70 kun iyadoo ilaa iyo 15 waan haystay laakiin walwal waa volatile waa volatility-ga kor bay aadaa hoos bay aadaa laguma qasaaro adaa mooday tan kale waxaa jiri waa la isku dhacaa dawladdu waa inay wax ka qabato dawladdu wax ka qaban karto dawladda maaragtay Soomaalidu waxay tiraahdaa mandhicir fara ka batay iyadaaba maaragtay arrimaheeda kala haysata marka ha sugin adiga laga doonay anigu waxaan aaminsanahay dadku waan la yaabaa maybe I'm not smart enough inay yiraahdaan waa la dhacay ama Facebook baa laga jabsaday waxaas oo kale dadku gurigay soo xiraan gurigaaga diganta waa soo xiraysaa qof walba ku xiraysaa furihiina kaga tagaysaa this is how it is la iskuma dhac xilligan smart la noqdo qof hadduu kula soo xiriiro inuu ku dhac doonay uu ku dhacaya su'aasha ugu dambaysa aan ka jawaabayo I forgot well of course addresska hadda inta badan markaan samayn jiray wax complicated uma samayn jirin tusaale ahaan cryptocurrency qof markuu u baahay Binance oo kale waa very easy to use hadda waxay ku soo dareen system artificial intelligence AI oo qofka wax walba verification ku sameynaya of course Soomaali iyo Kenya iyo meelahan kama ogol wali laakiin qof walba Soomaaliya dibadda waa loo joogaa ani ma oranay waxaan idhaahdaa 100% kan kula dhashay iyo tan kula dhalatay lacag u dhiibi lacagtaadu waxay tiraahdaa Soomaaliya intuu ku jiro aamin ku yahay Soomaaliya lagama daba qayliyo marka qofku yiraahdo waa kugu shaqeynaya lacag looma dhiibo qofku dhiman kara adaa dhiman kara wax walba dhici kara laakiin the best way waxay tahay qofku waxa leedahay addresska iifur $1 ama $10 ku soo dhiibaya adaa iibsanaya security ka dhig waxba tari maayo dadka intooda badan password bay geliyeen meel walba oo social media hooyo macaan aba macaan marka dambe laga jabsanaya secondly waxaan raacinaya waxyaalaha aan la yaabo ugu badan waxay tahay qofba Facebook laga jabsanaya ama Instagram wuxuu leeyahay sawir qaawan baa igu jira why on earth would you take your naked can you imagine aniga anoo qaawan sawir iska qaaday fool xumadeed oo aan gashanay meeshay you don't do that this is not smart man wixii social media gelisid ama internet gelisid gacan kale dhaxdu maraya had
hadda I can imagine dad badan halkan fadhiya caawa haddii laptop yar oo maalka halkan aan keensano oo Kali Linux ku jirto aan keensano Facebookyada waa la wareegi karnaa sababtoo qof walba gabadhuu jecel yahay ama wiilkay jeceshahay wuxuu ka dhigaya password ma jirto qof walba hadda waxaa idiin sheegaya intaanan iloobin meel walba oo social security social media aad isticmaashaan waxaad u isticmaashaan Yahoo ama Google Authenticator kan oo kale ah hadda idin siiyo username Facebook aan ku isticmaalay passwordka waxba ku tari maayo waayo kan ayaa isticmaala u jeedaan koodadkan oo dhan Instagramka Twitterka every 50 seconds waa isbedelaa marka waa Google Authenticator cid kaa jabsan karta ma jirto waxa ka xiraya waxa kadib casaan noqonaya wada kaysoo isbedelaya waxba tari maayo invalid buu noqonaya marka Google Authenticator ku isticmaala cid kaa jabsan ma jirto tan kale sawir ha ku dirin social media ma doonin foolxumada inaan aragno waa masan gabadha walaashay sheegtay disay qurbajoog iyo qorax joog xaq bay u leeyihiin waddanka inay ka shaqeeyaan arrinta ahayd xagga shaqo abuurka Soomaaliya waxaa ka jira opportunity fara badan hadda meelahan soo marnay hay'adaha soo marnay waxaan soo aragnay in shaqo laga abuuri karo in wax laga qaban karo dowladda kaliya lama rabo inay shaqo abuurto laakiin ganacsatada ayagana waa inay shaqo abuuraan inay dhalinyarada shaqo u sameeyaan marka waxaa loo baahan in gacmaha is qabsado dowladda iyo ganacsatada ay wada abuuraan shaqo abuuraan taas ayaa looga bixi karaa shaqo la'aanta jirtaan bismillaah aad iyo aad baa u mahadsantihiin caawa halkan dood adag baa ka dhacday cabdinaasirna uga mahad celinaya iyo ambaashadoorka waxaan u malaynayaa tiknolojiyadda khibrad fiican bay idinka siiyeen dardaaran fiicanna way idinka siiyeen aniga laftirkeyga waxyaabo badan baan ka faa'iidey waxaan rabaa laba su'aalood oo dhanka dawladda soo aaday oo la weydiinayay gabadhaas way ka cudur daaratay magaceeda iyadoo degdegaysa noomay sheegin aad baa u mahadsan tahay su-aashii ahayd dawladdu may dhalinyarada u abuurto shaqo abuur ku saabsan ama xirfado ku saabsan beeraha iyo kalluumaysiga iyo waxyaabaha waddankeena yaalla oo laga shaqayn karo marka su-aasha aynu isweydiinayno waa wax aad u qurux badan laakiin tusaale ahaan waxaan rabaa inaan idiin sheego farsamada gacantu dadkeennu inay bartaan ma ogola waxaa la sameeyaa mashaariic yaryar oo dadka farsamada anaga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxyaabaha skillska ama farsamada gacanta dadka la baro 6 months ama certificate-ka waxyaabaha ku baxa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iskale haddii diplom iyo maxaan ku dhahay badge iyo laga qaadanayo wasaaradda waxbarashada iskale mar walba waxaan qabanaa mashaariic yaryar oo dhalinyarada lagu barayo korontada maxaan ku dhahay kharkhaanka maxaan ku dhahay waxyaabaha tuubooyinka decorationada waxyaabaha la samaynayo haddaan caawa idiin sheego yacni waxaa laga yaabaa inaad badankiid og tihiin laakiin aad su-aal uga dhigaysaan dawladdu maxay waxyaabaha u qaban weyday waxaa la sameeyaa mar walba in mashaariicdaas la abuuro oo hay-aduna inta badan skillskay hadda aadaanba mashaariicda ugu badan oo dadka wax la baro dhalinyarada markii 100 qof dadka macadada iyo injineershanada iyo ka shaqeeya kulligood way garanayaan dhalinyarada marka 100 qof la dhaho ama 50 qof baa la tababarayaa waxaa la barayaa farsamada gacanta horta inay meesha yimaadaan oo xiisadaha qaataan incentive baa lagu siiyaa lacag baa lagu siiyaa waxaa la dhahaa 6 bilood ama 3 bilood baa waxaa lagu barayaa farsamada gacanta si ay ugu shaqaysatid waxaan lagu siinayaa lacag intaa leeg waa la diiwaan geliyaa waa la baraa marka ay dhameeyaanna waxaa la siiyaa shahaadadii iyo qalabkii halkaa markuu ka baxo wiilka reer Puntland ah halkaa markuu ka baxo qalabkii korontada oo la rabay inuu ku shaqaysto wuu gataa 70% way gataan kuma shaqaystaan haddii kharkhaan la siiyo 70% waxaan rajeynayaa hodan xabay difaacin qofka baabka markuu yahay public figure yahay mana qofka micnaheedu waa sax dawladdu ka hadlay dawladana ka warqabnay meesha laga yimi saraaxa meena wal cadaalad sameeyaa laakiin hal waxa baan ka rabaa maadaama aan ka hadlayno dawladda kale yahay laakiin private sector ka jaamacado kale waxaan u jeclaan lahaa si fursado loo abuuro jaamacadaha qaarkood ama jaamacadaha in lagu qasbo inay jaamacad aysan jirin macna innovation hubs ama uusan jirin macna incubators
meel dhalinyaradu ay ku sameeyeen ikhtirac haddii uusan jirin jaamacadda inaan loo ogolaan inay macnaha shahaado bixiso adduunka meel ay ka jirta male qofkii soo fariisto wax loo xariiqo marka qofkiisa waraaqda iska baxli yaraado adduunka ma jirta arrinka ah marka jaamacadda in lagu dawlad meesha ka soo galaysa meesha jaamacad miyaa arday baa kula joogta ardadan waddanka inay caawisaan doon wax soo saar la sameeyo waxa akhrinaysa way akhrisan karaan waxaan u baahannahay incubators waxaan u baahannahay innovation harvest marka jaamacadda halka ah ta labaad waxa kale ka rabnaa waxa ka mid ah manhajka jaamacaddu waxaan rajaynayaa dawladda inay faraha la soo gasho runtii macnaha jaamacadda arkaysa qaar baa suudaan ka soo qaadanaya qaar baa ka soo qaadanaya meelaha kale qaarkood lamaba socdaan 21st century qaarkood lama socdaan bisaraha jaamacadda waan tagnay waana booqannaa seminaarana waan ka bixi lama socdaan qaarkood taa waa mid waxaan is leeyahay halka dawladda waxaan ka rabnaa inay jaamacadda awoodda saaraan hadda kor dhowr meel waan ka sheegay madaxweyne ka Finland baa waxa yimid baalka muxuu ahaa Aljazeera Axmed Musuur baa wareysanayay hal su'aal buu weydiiyey wuxuu ku yiri wareede waddan inta leeg oo shidaal lahayn oo dheeman lahayn oo xoolo lahayn oo 3 bilood wax beerataan just 3 months wax beerataan say ku dhacday inaad ka aqoon ka dhaqaale badan tihiin wadamo shidaal kale marka hal ar si fudud ugu jawaabto waxay tiri ma tahan bay tiri yani anagu waxay tiri meena dhow inaan beerano muhiim ah dadka maskaxdooda aan beerano 5 milyan way laakiin 3 milyan oo maskaxdooda aan beerto baa igu filan marka maskaxda waxay soo saartay dhulku waxay ka badan baal marka waa baahan bay tiri shidaal waxyaalaha maxay tahay marka waxbarashada lama free laga wada dhigo dhaqaalaha dadka ugu mushaarka badan waa macallimiinta meesha la yiraahdo fiilan meesha ugu dhaqaalaha badan ugu mina mushaarka badan macallimiinta taa waa mid barod arrinkan kale ku saabsan dhalinyarada waxaan rabaa inaan ogaado barnaamij ay yaqaan la yiraahdo e-residence ay bixiso meesha la yiraahdo Estonia ka baara waxa la yiraahdo e-residence hadda waxaan baarayay adoo halkaaga jooga ayaa waxaa ka qaadanaysaa baalkii ahaan inaad ka tahay mina qof adress leh deegaan leh oo shirkado iyo ka samaysan kara meeshaas halka for example waxaa ku qoran حتى جولاي 22 895 ابلكيشن بعد الجرا tirada hadda ka samaysan e-residency waa 100,000 qof e-residence waa electronic e-residence waxaan fiirinayaa marka wadamadan fiirinaya listigooda waxaan ka dhaxarka tusaale kale Soomaaliya 5 qof baa iska diiwaan gelisay 5 qof baa waxay qaadatay number of e-residence waa Soomaali mid ka mid la kambaliyay marka waa maxay waa digital nomad adoo meeshaada jooga baad ka diiwaan gelinaysaa waxaa lagu siinayaa electronigas waxaa tahay qof macna shirkad EU ku dhexleh baad noqonaysaa marka arrinka daraaseeya dukumiinti halkaas ku jira tirada waa qoran min wadamada oo dhan baa ku wada jira marka Soomaaliya baa aray 5 qof baa ku jira residence ay qabta qaar ka mid ah mina company ay sameeyeen marka waxa ku wada jira adduunka dhan baa ku jira ilaa Sacuudiga Afrikaanka dhan baa ka wada ah marka fursad waxa lagu siinayaa marka inaad ku noolaan kartid ma aha laakiin waa maxay adigu halkaaga jooga waxa ka sameynaysaa shirkad lacagta baxaysana ma aqoon €200 baa lagu bixinaya bal arrinkan daraaseeyo ma santiin